محمد علي وفيريان عان أو دشي دلك مريكنك. محمد علي oo dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan magaca Maxamed Cali Kalaay ayaa taariikhdu markay ahayd January 1942 ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo ku yaala koonfurta Mareykanka. Kalaay oo ka dhashay qoys haysta diinta Masiixiga ayaa waxay waalidkiisu ugu wanqaleen magaca Cassius MC Kalaay. wuxuu ku guuleystay tartanka feerka miisaanka culus tiro 3 jeer ah. sidoo kale wuxuu muddada 20 sano ee uu ku dhex jiray ciyaaraha feerka uu ku guuleystay inuu noqdo horyaalka adduunka sanadihii 1964 1974 iyo 1978. sanadii 1999 ayaa Kalaay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee caalamka soo mara qarnigii 20aad. Maxamed Cali Kalaay wuxuu caan ku ahaa goosmada ama gasta faraha badan taasoo dib u keeni jirtay feeryahanada isaga la tartama. waxaa kale oo Kalaay ku caanbaxay intuu feerka ku dhex jiray feerka degdega ah. sanadii 1994 ayay ahayd markii ugu horeysay uu Kalaay si la yaab leh uga guuleystay feeryaanka ah horyaalka miisaanka culus ee lagu magacaabi jiray Sonny Liston. wuxuuna Kalaay isla mar ahaantaas la wareegay suunka cadeynta uu ahaa inuu noqday horyaalka adduunka ee feerka miisaanka culus. Kalaay oo markaa da'diisu ahayd 22 sano jir ayaa noqday feeryaankii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta suunka feerka miisaanka culus ee taariikhda adduunka soo mara. muddo yar kadib markii uu Kalaay noqday horyaal ayaa wuxuu si lama filaan ah warbaahinta caalamka uga sheegay inuu qaatay diinta Islaamka. sanadii 1965 markuu Kalaay si rasmi ah ugu biiray diinta Islaamka ayaa wuxuu magaciisa hore ku bedelay magaca Islaamka ah ee Maxamed Cali. Kalaay wuxuu u qaatay diinta Islaamka isagoo aanan ka lahayn wax dan khaas ah ama qarsoon. waxaana xitaa dhici kartay inuu Kalaay talaabadaas ku waayo taageerayaashiisa aadka u tiro badnaa. laakiin waxaa dhacday taasi bedelkeeda oo ah in taageerayaasha iyo shacbiyadda uu Kalaay ku lahaa gudaha dalka Mareykanka iyo caalamka intiisa kale ay aad u sii kordhaan. sanadii 1966 ayaa Maxamed Cali Kalaay laga qaaday imtixaan ku saabsan caafimaadkiisa. waxaana la sheegay inuu ka qayb gali karo dagaal ay dowladda Mareykanku qayb ka ahayd oo xilligaas ka socday dalka Vietnam. taasina waxay la micno ahayd in haddii uu Kalaay dagaalka ka qayb qaadanay uu guud ahaan ka tago feerka iyo waxbarashadiisa kaleba. laakiin Kalaay oo lagu yaqaanay dhiiranaan badan ayaa qaaday arrinkaas oo waa uu diiday inuu dagaal la galo sidoo hadalku u dhigay dad masaakiin ah oo u dhashay dalka tirsan dunida oo soo koraya. Kalaay wuxuu sidoo kale si cad u sheegay inuu gabi ahaanba ka soo horjeedo dagaalka ee Mareykanka ku qaadeen Vietnam oo masaafo ahaan aad uga fog dalka Mareykanka. wuxuuna sheegay in dagaalkaas uu yahay mid gardarro ku ah shacabka reer Vietnam. sanadii 1967 oo ahaa markii Kalaay uu gaaray guulihii ugu badnaa ayay dowladda Mareykanku ka xayuubisay suunkii horyaalka feerka miisaanka culus. sababtoo ah Kalaay waxaa lagu soo eedeeyay inuusan ahayn wadani bacdama uu diiday ka qayb qaadashada dagaalka ka socda dalka Vietnam. muddo dhan 3 sano ah Kalaay kamuusan qayb galin wax tartan feer ah. laakiin wuxuu feerka mar kale dib ugu soo noqday sanadii 1970. sanadkii 1967 waxaa cirka isku sii shareeray dagaalkii Vietnam ee Mareykanku ku lug lahaa. waxaana markaas Maxamed Cali Kalaay loogu yeeray inuu shaqada qaranka ka qayb qaato. Kalaay taas uu diiday asagoo sheegay cudurdaar diineed awgeed inuusan dagaalka u aadeynin. waqtigaas wuxuu ahaa imaam muslim ah. diidmadiisu waxay dhalisay halku-dhigii caanka ah ee Cali uu yiri wax muran ah nagama dhexeeyo aniga iyo iyaga Vietnam. halku-dhigaas wuxuu dhaliyay in dhammaan gobolada Mareykanku ay waxba kama jiraan ka dhigaan shaatigii feerka ee Maxamed Cali Kalaay. markaas kadib Maxamed Cali Kalaay wax feer ah kama qayb qaadanin muddo 2 sano iyo bar ah. waxaana laga xayuubiyay biladihiisii, waxaa laga qaaday baasaboorkii, waxaa laga masaxay shaatiyadii feerka. waxaana uu qarka u saarnaa in xabsi 5 sano lagu xukumo. xilligaas wuxuu Maxamed Cali Kalaay lacag ka samayn jiray hadallada uu ka jeediyo meelaha macahadyada. Maxamed Cali Kalaay wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay oo heerkaas qaranka Mareykanka joogay oo ka soo horjeesta dagaalkii Vietnam. ugu dambeyntii Ilaahay ha u naxariistee Maxamed Cali Kalaay wuxuu dhintay 2016. dhab ahaantii wuxuu Maxamed Kalaay ahaa qof aad u wanaagsan oo muslim iyo gaal wada jeclaayeen. Ilaahay ha u naxariisto Maxamed Cali.